السلام عليكم guys kusoo dhawaada barnaamijkeena la talinta caafimaadka aan ugu baratay haadahan oo kale inaan idin soo gudbino. Barnaamijkeeni maanta waxa uga hadlaynaa saameynta uu ku leeyahay daawooyinka dumarka uurka leh. Waxaan ka hadlaynaa laba qayb oo qaybinayna daawooyinka ay isticmaalaan dumarka uurka leh. Waxaa loo qaybiyaa qayb kuwa chemicals ah oo body lotion jirkooda u isticmaalaan iyo kuwa antibiotic ay qaataan during pregnancy. inta aan u gudagalin ka hor mawduuceen waxaan idinka codsanaynaa haddaad channelkeena ku cusub tahay inaad subscribe tirahdid oo aad like-na aad nagu deeqdid iyo haddii aad la wadaagi karto asxaabtaada khaasatan qaraabadaada qofkii aad taqaanid oo mawduucan oo quseeyo. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni dumarka uurka leh during pregnancy bilaha ugu horeeya ama isbuucyada ugu horeeya jirka bini'aadamka wuxuu soo active gareynaa bilaaba inuu active gareeyo wax loo yaqaan amniotic fluid dheecaan loo yaqaan amniotic fluid oo bilaaba inuu jirka soo saaro. Dheecaankaas amniotic fluid oo jirka soo saarayo wuxuu difaacaa cunugaas uurku jirka caloosha ku jiro difaaca maadaama cunuga uurku jirka caloosha ku jiro uu difaacayo waxaa loo baahan yahay inta oo dheecaankaas oo ka naqanaya mid complete fit ah oo ka dhamaystirma ilaa isbuucii 20aad oo ka gaarayo week 5 bilood ilaa uu ka gaarayo jirka bini'aadamka looma ogolo qofka dumarka inuu isticmaalo wax cosmetics ah wax chemicals ah oo maqaarkaas oo layerskaas dhaawac gaarsiinayo. Dumarkeena hadda magaalada jooga maxay isticmaalaan waxay aad u isticmaalaan waxyaabo oo body lotion maqaarka jirka bini'aadamka qurxinayo. Body lotionkaas dhibaatooyinka uu keeno waxaa kamid ah haddii aan body lotion isticmaalo body lotionka wuxuu keenaa inuu maqaarkii adaptation la sameeyo oo la qabsado. Tomorrow during pregnancy markaa tahay haddii oo aroos lagaaga waco ama any vocational ama xaflad meel oo bandhig lagu bandhiga haddaad tagtid dad iskugu imaanayaan gathering people waxaa u baahan tahay in jirka maqaarkaaga oo ifayo si dadka ay ku arkaan inaad qurux badan tahay. Haddaad isticmaashid marka any body language during pregnancy lakabyada jirkaaga furan waxaa galayo daawooyin cosmeticska hadduusan daawooyinkaas ahayn mid side effect lahayn dhibaato uu ku keeno waxaa kamid ah inuu ku keeno maqaarkaaga inuu isbedelo oo ku keeno wax loo yaqaan allergic ama waxyaabo oo goosi loo yaqaan ama maqaarka inuu nabra yar ka soo baxo. Nabrahaas marka maxaa daawo ah nabrahaas waxaa daawo ah inaad qaadatid daawo antibiotic inaad qaadatid sida gabdhaha waxay isticmaalaan kaniini xasaasiyad oo kale prednisolone qaataan iyo kuwa qaar oo waxaa jiraan kasii dareen oo waxay isticmaalaan garasafil way u isticmaalayaan garasafil waxaa loo isticmaalaa cambaarta inuu lala dagaallamo waxyaabaha cambaarta oo maqaarka soo korayo. haddaad isticmaashid garasafil problemaad fara badan kaaga imaanaya inuu maqaarkaaga baabi'iyo oo dhibaatooyin badan kaaga imaanaya haddii oo garasafil dhibkaas uu ku keenayo adigana aad isticmaashid before pregnancy after pregnancy maxaa isticmaalaysaa ileen garasafilkii u baahan tahay waxaa laga yaabaa inaad tahay bishii 3aad inaad maraysid 3 bilood uur inaad leedahay oo amniotic fluid oo fit ahayn amniotic fluid hadduu fit ahayn oo also xataa hadduu amniotic fluid fit noqdo daawada garasafil 500 mg mamnuuc waay. Gabdhaha problemaad fara badan waxaa dhinaca daawooyinka dhibaatada nooc waxaa kaloo kamid ah sida Tecmol oo kale waa isticmaala ileen Tecmol wuxuu ka kooban yahay kaniini oo loo yaqaano chemical loo yaqaano wuxuu ka kooban yahay caffeine waa chemical halis nagu ah waxaa loo isticmaalaa inuu maskaxda bini'aadamka lagu conscious looga dhigo. Haddaad isticmaasho marka daawadaas adoo uur leh pregnancy dhibaatooyin fara badan oo ku leeyahay wuxuu kale ka kooban yahay laba chemical kale oo jirka bini'aadamka aad ugu fiican sida paracetamol iyo diclofenac ka kooban yahay labaas haddaad u fiirinaysid aad tirada waa isticmaala mid saddexaad oo qarsanaa jiro oo caffeine loo yaqaan caffeine ka dhib kugu ah waxaa kaaga fiican oo isticmaashid diclofenac iyo paracetamol oo normal ah si jirkaaga oo lafaaga oo caadi u noqdo. laakiin during pregnancy ma isticmaali kartid wax chemical ah haddaad isbartid daawooyinka inaad isticmaashid during pregnancy dhib waxaa ku imaanaya intaad uur leedahay waxaa ku imaanaya inaad daawadaas aad isbartid inaad isticmaashid waxaa kaaga fiican problem walba oo dhibku keenayo aad u isticmaalaysid daawo sida madax xanuun oo kale daa qabtid waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid drinking of a lot of water biyo badan la cabaa haddaad biyo badan cabtid daawooyin badan aadan u baahnayn biyahaas fara badan aad cabaysid jirkaaga u baahan jirkaaga haddaad biyo badan isticmaashid wax badan uma baahnid haddii lacala aad isleedahay waxaa u baahan antidolora biyahaasaa daawo ah okay antibiotic haddaa u baahan tahay antibiotic waxaa daawo ah inaad isticmaashid waxyaabahan oo loo yaqaano carbohydrateska ileen what is antibiotic daluuna antibiotic is carbohydrate waa nafaqo jirkaaga ka dhamaatay ama energy jirkaaga ka dhamaado oo lagu soo celinayo waxaa loo yaqaanaa carbohydrate loo yaqaana kaasaa antibiotic la dhahaa oo banaanka external ahaan lagu siinaa. Marka waxaa ku wanaagsan
intaad ku ordi lahayd daaweyn isticmaashid sida dumarka oo oxygenka dhibayo kale inhalation exhalation wadnaha xanuunayo waxaa yaraada proteinska jirkooda yaraada ilaa RBCska wuxuu ka kooban yahay hormone loo yaqaan erythropoietin waxaa sameynaya activation of RBC sameynaya hormoonkan wuxuu ka imaadaa baalkan loo yaqaano ka imaada proteins ka imaada proteinska doo jirkaaga ku yaraado hormoneskaas lama helaa si hormoneskaas loo helo waxaa qasbantaa inaad jirkaaga biniaadanka protein fara badan isticmaasho proteinska isticmaalna dumarka waxaa kamid ah sida waxaa haysanaa protein wadankeena khaaska ee loo yaqaano maxog faa'iidooyin fara badan uu leeyahay maxogaas oo kala soo karsanee bataati macaana jiro barandaa jiro waxyaabahaas isticmaali kartaa haddii proteinska jirkaaga aad bari weyso isticmaali weyso maxaa dhacay tomorrow waxaa u baahnaane inaad isticmaashid daaweyn external sida totahama u baahnaane ama verivol ama hematon sharoobooyinkaasna u baahan tahay marka si aan usoo gelino clip mawaadiic intaan kasii badan waxaa idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan mawduuc alla mawduuca isleeda na anfaca inaad noogu reebtaan commentiga waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. See you next week.